kulanti wacan u wanaagsana qayaarta hawada naga daawanaysa kusoo dhawaada warka telefishinka Ilaa Allah u dhaxariistay wariye Ismaaciil Sheekh Khaliif oo goorno ku geeriyooday magaalada Muqdisho xukuumadda Soomaaliya oo ka dalbatay beesha caalamka in la xoojiyo taageerada ay siiso Soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabduqaadir oo ku dhawaaqay xilliga la qaadayo imtixaanka shahaadiga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed oo booqday xarunta hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo kormeeray xaafada ka tirsan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee saameyn ku yeesheen fatahaadaha uu sameynayo webiga Shabeelle madaxii waxbarashada ee maamulka Somaliland ee gobolka Sool oo isdiibay cabsi xooggan ayaa waxaa laga qabaa inuu mar kale sameeyo fatahaad webiga Shabeelle intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka Ilaa